calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbacaha qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah Axmed Madoobe oo xilka ka qaaday wasiir janan kadib markii heshiis hoose uu la sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina uu doonayo inuu si weyn u dabarjiibiyo Axmed Madoobe maadaama farmaajo asiga qaraabo yihiin ugu dambeyntiina lagu heshiiyay in malaayiin dollar la siiyo ciidamadan uu ku soo wareejiyo sidaas daraadeed Axmed Madoobe ayaa xilka ka qaaday banaanbax weyn oo ka dhacay gobolka Gado lagu taageerayo wasiir janan sidoo kale Fahad Yaasin oo ku sii jeeda gobolkaasi Gado sidoo heshiiska ugu saxiixi lahaa ninkii dambiilaha ahaa ee shalay adduunka laga raadiyay in maanta la yiraahdo waa qaran oo farmaajo iyo qaraabo la yahay aan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Nuur Janan kadib markii uu shaaciyay inuu wada hadal kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina heshiis culus ay gaareen wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu shaaciyay xilka qaadista lagu sameeyay Janan oo ciidamo ku haysto duleedka beled xaawo isla markaasina la sheegay in ka badan 400 oo ciidan iyo 36 tiknika ay halkaas ku haysto la doonayo inuu adeerkiis farta ka saaro waa farmaajo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madoobe wuxuu xilka ka qaaday Cabdirashiid Xasan Janan wasiirka amniga dowladda Jubbaland ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe digreetada xilka qaadista uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland laguma cadeynin sababta xilka looga qaaday wasiir janan oo kamid ahaa wasiirada u dhow Axmed Madoobe hase ahaatee way iska caddahay inuu la heshiiyay walaalkiis farmaajo isla markaasina sidaas xilka looga qaaday arrintan ayaa ku soo aadaysa saacado uun kadib markii uu soo shaac baxay wada hadal u socda dowladda dhexe iyo janan iyada oo wakiilo ka kala socda labada dhinac ay yeesheen kulamo lagu heshiisiinayo dowladda federaalka iyo Cabdirashiid Janan si kastaba tallaabadani ayaa ugu sii daraysa khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka iyadoona Axmed Madoobe uu weyn doono guud ahaan gobolka Gado haddii ciidamadaasi iyo janan bay u soo gacan galaan Fahad iyo farmaajo aan la ogeyn inay si toos u cafi doonaan maadaama booliiska caalamiga ah ay raadinayaan ninkan hore dambiile u ahay taa ayaa lala yaaban yahay in Fahad iyo farmaajo ee warqad dambiile la'aan ah ay u sameynayaan si uu siyaasadda u sii joogo ama loo adeegsan lahaa la dagaalanka Axmed Madoobe si kastaba ha ahaatee dambiilihii shalay ayuu maanta farmaajo leeyahay waa wadani dalkiisa difaacaya halkaasi ha kaaga harto qabyaalada qeexan ee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhinaca kale banaanbax weyn oo lagu soo dhaweynayo Cabdirashiid Janan oo ka socdo beled xaawo degmada beled xaawo ee gobolka Gado waxaa ka socday banaanbax ballaaran oo lagu soo dhaweynayo wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo heshiis la gaaray dowladda federaalka Soomaaliya sidaan sheegnay isla markaasina la xaqiijiyay heshiiskii in la dhameystiray sidoo kalena Fahad Yaasin halkaas ku wajahan yahay si toosana waraaqaha loo kala saxiixanayo ciidamadana uu ku wareejinayo shacabka ku dhaqan degmada beled xaawo ayaa isugu soo baxay wadooyinka degmadaasi si ay u soo dhaweeyaan Cabdirashiid Janan oo horey dagaal loogu saaray degmadaasi balse ugu dambeyntii la heshiiyay walaalkiis farmaajo banaanbax lagu soo dhaweynayo janan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta dowladda ee gobolka Gado ayaa sidoo kale lagu taageeray maamulka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dad badan ayaa la yaabay Muqdisho banaanbaxa waa xaraan gobolkaasi Gadana waa xalaal maadaama dadka banaanbaxa ay yihiin dhammaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo qaraabadiisa dhow wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa lagu wadaa inuu soo gaaro degmada beled xaawo saacadaha soo socdo oo marar badan isku dayay inuu dagaal ku qabsado balse ku guul daraystay waxa uuna markaan tagayaa isaga oo heshiis la ah dowladda uu la dagaalay oo dambiye waaweyn ka galay isla markaasina cafis ee u fidinayso waa sida warka loo dhigay haddii ay suuro gasho waxaa sidoo kale la filayaa in degmada beled xaawo gaaraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo dhameystiraya heshiiskii hordhaca ahaa oo ay gaareen Cabdirashiid Janan iyo dowladda uu hogaamiye farmaajo hase ahaatee wasiiro culculus oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaa halkaasi ku sii wajahan shalay ayaan tibinay in halkaasi loo daabulay gawaaridan xabadda karin wasiiradaasi iyo waxaa loogu talagalay taliyaha nisa Fahad Yaasin hase ahaatee lama oga sida farmaajo iyo Fahad Yaasin nin shalay dambiile ahay adduunko idin laga raadinayay in ay maanta ku yiraahdaan waraqad cad waa wadani oo dalkiisa ayuu u dhimanayaa taa ayay malaayiin Soomaali ah ilaa iminka la yaaban tahay adiga iminka dhageysanaya warbixintane waad la yaabi doontaa maxayse kula tahay dhinaca kale taliya Fahad Yaasin oo diyaaradii waday ka degtay garoonka Doolow sida warbixinadii ugu dambeeyay iminka ka soo baxayaan
ilaa 3 diyaaradood ayaa siyaabo gooni ahay waxay maanta ugu degeen magaalada Doolow ee gobolka Gado oo ilaa shalay gaadiid dagaal iyo ciidamo loo daabulayay diyaaradii saddexaad ee duhurnimadii gaartay halkaasi waxaa la socday sida aan ogaanay taliyaha NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir hadda waxaa la diyaarinayaa inay wafdiga dowladda u gudbaan dhinaca beled xaawo ka hor inta aysan u sii gudbin tuulada Najax oo Cabdirashiid Jan ku sugan yahay gaadiidka aan xabada karin bullet proofka ayaa looga qaaday taliya Fahad Yaasin iyo xubnaha la socday degmada Doolow oo ay u jihaysteen beled xaawo xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in la diyaariyay ciidamo badan oo amniga sugaya inta kulamada heshiiska lagu dhameystirayo dooda jirta ayaa ah dowladii shalay ninkaani dambiyo waaweyn dusha ka saartay isla markaasna la og yahay Amnesty International ay hor u sheegtay ninkaani dambiyo qaran uu galay isla markaasna la raadinaya taliya ku-xigeenka booliiska haweeneyda lagu magacaabo Sakiya ayaa hore u sheegtay ninkaasi inuu baxsaday isla markaasina booliiska Soomaaliya ay ku raad joogaan si kastaba ha ahaatee arrintaani ayaa iminka Soomaaliya oo idin la yaaban tahay ninkii shalay la raadinayay maanta heshiis lala galo isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya oo garabkiisa soo fadhiisto ayagoo ku xumeynaya Axmed Madoobe fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media sir culus xildhibaanada taageersan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa wacad ku maray haddii shirarka socdaan heshiis laga gaarin in loo laabanayo doorasho qof iyo cod ah isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday baarlamaanka u codayn doonaan in muddo sanooyin ah loogu daro xildhibaano ku shirsan hoteelka Dekaalo oo wacad ku maray inay tallaabo qaadi doonaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shir uga socda hoteelka Dekaalo oo ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadi isla markaasina 48 saac la soo dhaafay halkaasi ku shirayay xildhibaanada ayaa sheegay in haddii wada hadalka uu guul dareysto ay tahay in baarlamaanka Soomaaliya lagu celin doono dooda doorashada isla markaasina halkaasi go'aan ku gaari doonaan guuxa siyaasadeed ee kulanka afisyoone ayaa qayb ka ah doodaha salka ku haya arrinta doorashada maadaama horey looga warqabay in madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday uu doonayo inuu baarlamaanka ku soo celiyo heshiis walba oo la gaaro xildhibaanada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa taageersan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ay sheegeen inay doonayaan doorasho qof iyo cod ahi inay dalka ka dhacdo iyada ay xusid mudan tahay in iyaga ku dhowda aysan haysan sharciyad maadaama muddaxileedkoodii dastuuriga ah uu dhamaaday sanadkii la soo dhaafay lama oga tallaabada rasmiga ah ay damacsan yihiin inay qaadaan balse xogo aan helnay ayaa sheegaysa inay doonayaan in xukuumadda xilgaarsiinta ay waqtiga u kordhiyaan taas oo khilaafka doorashada sii fogeyn karta isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed sii kala fogaan doonaan waxaa sidoo kale Muqdisho ka socda dhaqdhaqaaq ay wadaan madasha badbaado qaran oo lagu abaabulayo xildhibaanada mucaaradka si ay iyagana saameyn ugu yeeshaan arrimaha ay damacsan yihiin xukuumadda xilgaarsiinta iyo xildhibaanada taageersan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo si kastaba ha ahaatee baarlamaanka haddii la furo isla markaasina qorshahaasi ay hor keenaan waxaa hubaal ah in halkaasi fowdo culus ay ka dhici doonto si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya wax kasta ka filo dalka meel xun ayay u wadaa dhinaca kale xog laga helay dhalinyaro rabtay in loo qoro ciidanka Soomaaliya oo lagu dilay xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho ilo wareedo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta waxa xaqiijiyay in la dilay ugu yaraan 2 wiil oo dhalinyaro ah kuwaasi oo qayb ka ahaa 500 oo dhalinyaro ah oo doraa tagtay xerada Turkisom ee Muqdisho dhalinyaradani ayaa rabay in ay ka mid noqdaan ciidamada Soomaalida ee uu tababaro Turkiga waxaana la sheegay in laga qaatay 200 oo ka mid ah dhalinyaradaasi tagtay goobtaasi wararkan helayna ayaa tilmaamaya in dhalinyarada soo hartay oo gaaraya in ka badan 300 oo qof ay gadoodeen isla markaasina ay isku dayeen in ay xoog ku galaan xerada Turkisom si loo tababaro waxaana kadib rasaas ku furay ciidankii ilaalada ka ahaa saldhigga Turkisom ee Muqdisho markii laga reebo geerida labada qof waxaa sidoo kale dhaawacmay dad ka badan 5 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen ilo wareedo lagu kalsoon yahay saraakiisha Turkiga iyo dowladda federaalka kama hadlin dhacdadaani warbaahinta oo xiriir la sameysay dowladda way ka gaabsatay halka Turkigana ay ayagana ka gaabsadeen Soomaaliya ayaa waxaa ka jirta shaqo la'aan xoog leh waxayna dhalinyarada muddooyinkii ugu dambeeyay buux dhaafinayeen goobaha ciidamada laga qoro ee Muqdisho si ay u helaan shaqo iyo nolol dhaanta tan rajo la'aanta ah isla markaasina meel kasta lagu xasuuqayo dhinaca kale madaxweynihii Hirshabeelle Master Waare oo sheegay in xoog lagu maamuli karin dalkan isla markaasina 30 sano meeshana dhigay ay tahay in uu damacsanaa nin ka mid ah madaxdii hore in dalkan military lagu xukumo hase ahaatee iminka aysan macquul ahayn
madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligaani dalka iyo shirarka arrimaha doorashooyinka ee dhowr jeer dib u dhacay. Waare oo waraysi siiyay warbaahinta noolaato ayaa sheegay in xilligaani Soomaaliya ay ka jirto cabsi badan oo la xiriirta wadada ay Soomaaliya ku socoto mid aan ahayn mid sax ah isla markaasina ay keeni karto burbur Soomaaliyeed. waxa uu sheegay in la diiday wax kasta oo wada hadal ah oo xal u noqon lahaa dhibaatooyinka dalka ka jirta, waxaana uu sheegay in dalkeena aysan ka shaqaynaynin awood in la adeegsado ciidan, isagoo tusaale u soo qaatay hogaamiyayaal dalka soo maray oo ku fashilmay. Si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi waxyaabaha laysku haysto ma ahan ayuu yidhi doorasho ee waxa laysku haystaa yidhi masiirka ummadda Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi dalkaani iyo ummadda Soomaaliyeed laguma xukumi karo ayuu yidhi qoray caaradiisa, qof kasta maskaxdiisa ayuu ku haya ayuu yidhi cunuga iminka mar dhow dhashay xataa waa uu og yahay inaan marnaba lagu xukumi karin qoray caaradiisa. haddii arrintaasi dhacdane dalka oo ku laaban doono 30 sano ka hor wixii dhacay.